gabdhaha waxaa soo kaxeeyey ninkaan madax iyo calool aanu bixiyaa waxaa soo kaxeeyey ilaahay dambigiisa intaqaanaayto dambigu iga galay baaba ciidaas ka badan maba raba saacadda inaa ajar u shaqeeyay adigu ninkaasaa naaga soo kiciyey wuxuu kaalaya maamulyoon dacweeye gabar aan u bixiyey gabdha aan u bixiyey caagadaha cabdalle baa maxkamad ila aaday markaasay waxay dhaheen youtube ayna gelisay ama sawirkoodaan geliyey maya maxaan geliyey gabdhahan is aqoon jirnay ahaayeen magaalada aan wada deganaan jirnay baan ka sheekay waxay dhaheen youtube ayna gelisay magacayga waxay dhaheen youtube ayna gelisay markaasay waa xasuustaa gabdho soomaaliyeed oo ila socdayna way xasuustaan lawyerkaygii michaelna wuu xasuustaa naagtii gabadhii jaajka ahayd naagigama mudne ilaahay ha soo hanuuniye baa waxay tiri youtube bay gelisay tisayt waa ku gelin kartaa magacaygay sheegtay tisayt waa sheegi kartaa waxay tiri waa ay caydimay tiri way ku caayi kartaa qofka haddaadan orsay say tiri miyay ku tiri waa ku dilayaa say tiri haa say tiri caddayn la kaala ballan dambana wana loo qabto qof aadan marka oran waa ku dilayaa ma soo saari kartaa soomaalidu beenta easy bay u sheegtaa laakiin ma soconayso caddaynkeen baa la yiri 2 wiig ka horna lawyerkeeda u dir baa la yiri lawyerkaaga ha u diro lawyerkii baa warqadihii looma dirinin adigu 2 beri maaqa wax ka dhiman markaa hadii warqadihii loo diray horta waxay ku feel gareeyeen ballantii la yiri 2 weeks ago wadankan sharci baa shaqeeya rule and regulation baa shaqeeya horta waxay ku feel gareeyeen waqtigii loo qabtay ballantii ma ay gudbinin taas waa ku dhaceen waxay kaloo ku dhaceen waxaa la yiri cajaladahana soo translator ku soo sameeya 2 translator kuma soo sameyn 3 waa la waayay wax aan ku iri waa ku dilayaa waa la waayay dismiss baa la yiri lacagna waa ka baxda intaanoo naagood oo markhaati beenaalayaal ahaa oo kadaabiin ahaa oo ilaahay ka xishoon waayeen gaaladii hortoodii bay ku ceeboobeen ilaahay bay ka xishoon waayeen gaaladii hortoodina way ku ceeboobeen waagaas dadka i dacweynayay iyo kuwa hambaabuleynayay iyo kuwa kulli daarood bay ahaayeen weliba harti bay ahaayeen samahayn yes jarteen iyo dhulbahante bay ahaayeen mareexaan baa ku jiray wax walba ila soo mareen waxa la igu ceyrsanayay abtagay baa ifuulay haddaan ku leeyahay horta samaanta soo jalbaa ma qabo yes soo cimro ama socdo beydka ilaahay anoo taagan baa waxaan idiin sheegayaa anoo 6 sano jira inuu abtagay soo kufsaday markhaatina yaa iyo allah weyno waaxidka baa marag iyo adiga markaa ma dhiganayo kus imaad arkeenin anoo 6 sano jira oo gabar yara oo hooyaday la iga kaxeeyay oo baadiye la igeeyay oo ayaday la igeeyay hooyaday ina adeerkeed runa ee 2019 bishii 9 dhintay asagoon i cafi oranin inuu inta geed taas igeey gees ii saxiib halkiisa i marmariyay yaa markhaati allah marka allah markhaatigan gashay ma adii ka baryaaya no macallinkii dugsiga ii geliyay ii dhigayay inuu i farxumeeyay oo weliba aan mar iyo 2 midna ahayn be continue abtigeed one time baba igu sameeyay kii kaloo dugsiga oo taagan maantayto macallin ceejiye in Cismaan Soodi in uu anoo 9 sano jira islaaxi jiray marka waxaan dhihi jiray maadaan kaaga baqaya wixii igu dhacay sameeyay soo laabanayaan no ma ka hadli karaa waa be continue waligay waan ka hadlayaa because waxaan rabaa inaad caruurta aadan ku samaynin inay caruurta ku tiraado oo kana itaabtay kana ifuulay kana itaabtay kana ii dhawaaday kana saa igu yiri inay nooda bartaan ilmahan u dareynaya oo 10 uga dhigaya واي حق ما أقول لها يس ما لا شيء كرا يس يا إيجا مرخاتي إيجا إنه وحي دعي لشيء كرا إمام شكيب يا إلهي أصو صاري أنا ما أنتو صوب حيو إيري ما مليون خير الله سي شلباب صو قدر يا وانك إيري سو وذات إيه اللي رادناي وذات إيه اللي بان رادناي سو وذات إيه اللي ما صوبحنين وعبد الله دك ورماي so marka asaga ay male asaga giisu ka fiicna cudurkana waa imtixaan waliba waa il gurigiisa asagoo ka wada yar wuxuu isugu keenay intaasoo wadaad
buu isugu keena il weeye waxa wiilka ku dhacay laakiin isha insha allah intaan u ducayno ba ilaahay duu naga aqbalo oo caafimaadi doona waa il imisaan Minnesota taagnaa guri buuxay oo qurux badnaa gabar iyo wiil isqaba baa gabadha hooyadeed dhimatay Minnesota guri qurux badan oo aad qurux anu ma tagin taxsidoodii ya baan tagay markaan anu ma tagin dadkii baa taxsi u tagay markay taxsi u tageen reerkaas waa buuxeen balaayo waa u buuxeen taxsidii markay tageen ba qof kasta wuxuu ku mashquula reerka gurigoodii batoon baa qaylinayay mid kale ka caayay mid kale la hoos marayay mid kale la istaagayay ma yaqaanaan ma sha Allah Soomaalidu ma taqaano reerkii maxaa u dambeeyay dukun daakun cudur bay ka baxsadeen mooyaane maal iyo nool iyo jeel iyo dhibaato bay ku dambeeyeen Soomaalida wax ka ilkulu lama arko laakiin adkaarta afkinayaan حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله ربي لا اشرك به شيئا انت adkaartan ku baxsada waxaan nagu dhacay aniga ruuxayga family-gaygana wax kala ma ahan ilmahayga iyo family ilmahayga ma aqaana aniga hooyadayna waa dhimatay adduunka iigu jeclay hooyaday muddo dhan baan ka maqnaa hooyaday xamar waagi dagaalku ka dhacay Kismaayo maalintii laga baxayay anoo ninkan Faisal 50,000 isqabno gabarna haysta aan nin kale u soo dhalay maalintii qaxayeen baa waxaan arkay gabdhiyo nimankooda wata aniga waxaan ku yiri ninkayga meel gaar ah la deganaa reerkiyo guuraya gabadhaydii intaan ka daba tagaan gabadhaydii ka soo reebta hooyaday iyo labada mid ku walaalahaya airportka agtiisa intaan uga daba tagaan waxaan ku yiri meeshaan ku dhintay igula dhimanaysa Kismaayaan la haysta ku noqda halkaasaan ka baxay waxbaan tirsanayay waa ugu yaraa waxbaan tirsanayay ama khalad ha ahaato ama sax ahaatee gabadha marka nin qabin ama ninkeeda ma taqaanaayt ilmo kala ay wadato bayino ninkaano markii aan qaxootiga ku guursaday iyo waxba jiray marka xoogaa waxa la yiri maxaad ninka u guursatay ana waxaan rabay inaan xorriyadeeda laga hor istaaganin xaykin daba dhigay naagahana wada shuxshuxlaan arka hooyadayna waxa weeyaan anyway hooyaday 91kii saan uga soo qaatay gabadhaydii iyo reerkayga uga soo reebtay magaalada Kismaayo airportkeeda geedo waaweyn ku yaala aan Kismaayo kula soo noqday la haystaan ku noqda xamar baan la galay Ethiopian la aaday hawd baan intaan geeyaan gabar walaashay aabahay dhoo samsam la dhaho u geeyay halkaasaan ka sii aaday reerkan islaantaan aabahay qabaan inta uga tagay baan markiiba u soo laabtaan ka kaxaystaan walaashay samsam baa iiga dhigtay aayar baan u taqaanaayta u geeyay dararaf baan iriyo kiyo naag wata ka yimid markaas iyo dhoble iyo meelahaas ka yimid oo wardheer imaaday intaan u tagay baan ka soo qaatay warqadeedii okay ana cudadii ka bixin baan waxaan aaday magaalada la yiraahdo ana cudadii ka bixin baan waxaan aaday Yaman gabadhaydina waxaan uga soo kacday walaashay doon baan raaca doonta maalintaan ka degtay waa xasuustaa in cadan tagnay anagoo 4 iyo 3 maqaan waxaana bacaadada nagu dhacda qorraxdu waa kulaylka saan u dhig baxayna ilaahay baa og saan u gubanayno saan u rafaadsanahay haydareed baynu nahay nafta naga dhacaysa meel lagu gabada male meel la istaaga male intaan xiriyaha qaxootiga nala geynin halkaasaan ku rafaadna waa la joogay anagoo sidii cadan baan tagay waan ka tagay ticis baan tagay gabar Maryam Faarax garaad la dhaho oo mareexaana oo reer diiniyo reer dalala baan gurigeeda ku degay oo nin cali gargaar la dhaho warsangaliya uu qabay oo diyaarada markaas u shaqeynayeen baan gurigeeda ku degay marxaati Keenyada inay degantaa laga yaabaa baan aqalkeeda ku degay xoogaa yar baan joogay waxaan ku yiri sarcaan rabaa gabar haddeer dhimato reer bicdiyahana bay igu aadido Sahrabaag la oran jiray janiya raxma Allah siiye gurigii Sahrabaag baan joogay iyo calawilna la dhaho Yamaniyo qaba gurigoodu waa afxiran indhahan xirta jakabda shaqaan hela shaqada anoo ka shaqeeyo hotel baan shaqo ka hela Arbeed housekeeping baan hela housekeepingka aniga iyo wiil baa ka shaqeyna indhahan xirta because sancaaniyiintu waxay dhahdaan naagta afkeeda la arko bahalkeeda waa la arkaa gurigan joogana waa afxiran waxa la dhahaa waxa weeye waa sancaaniyiin wajigay xirtaan naag waji furan lama arko
wajigayga ay xiran shaqadaydaasaan tagaa maraq gacmo dheeraan qaataa cabaayadeeda waa laalaabtaa meel baan dhigtaa waa soo shaqaystaa jab 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 waxay iga jecel yihiin male waxayna igu jeclaayeen nadaafadayda jaram 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 sariirahan 500 barkimood la saaray iyo comfortiga la saarayna ma lahane go yar baad dhaq ku siinaysaa mid kale dhaq ku siinaysaa laba barkimood harqada ku tuuraysaa waa gelinaysaa laandariga dharka ku tuuranaysaa waa dhaqaysaa sariirtii baad hagaagtaa mari halkaas bay leedahay laba sad xataa male أنا ماشي كشقيني ماشي واحد دجنا ويل كي جوين أبيس الله نحرسته بعد دجنا هوتيلك إيه ويل البدر معلمين صومالي أو مالها كتمادنا ويسودك دقيقين ويل كاس أبيس أنا ماشي إسكبرنا ماشي بنكش يا كيسنا وحويري وواجي شركة قراريد أو دارات هوية بلايد أي جيفنيت بيهاي مركز وحويري أستقون حمر بو أنت الله سعودي كتبوا حمر آدي بالله يستقون نقطة markaas ilaahay ka soo saarayo halkaas maaragtay uu degan yahay sheekadaas waag horna waa idin ka sheekay laakiin ninkii youtube-da xiri jiray ku dhaarin jiray inuu yahay mataqaana wadaad maantana wadaadu ay jalaabiib u qabto oo sheekh shakiibna uu ag istaagan yahay oo mataqaana uu ka hadli doono daacad xumada Soomaalida ka dhex jirta youtube-da xiray ku jirtay ajadahan ka hadlaayo ninkii wuxuu sameeyay wiilkii wuxuu wiil walaale yaa taha wajiga ay xiran markaas wuxuu gaxan ku iri walaalle anigu ha ma jeerteen baan ahaa anigu waagas daarood iyo sheegtay waxaas ma baan aqoon ma jeerteen baan ahaan ku iri markaas iska ooyay ma gabdhaha iyagii talaay ma gabdhaha iyagii ba meelaha ka shaqeynaya asagoo xamar ba ku dhashay ciyaal xamar u ahaa ko waligiis balcad ma gaarin waligiis bari ma arag ko waa wiilka cali saleeban allah u naxariistay wiilka weyn u dhalay markaas wuxuu isiiyay maalintii ko $100 buu isiiyay وحسوسته $100 بيسي كاسو حوي ولا لوان كحمها إن هذا ما عرفت هذا هاوس كيبن كشقينيسي وان كحمها أنا جوا حالي والله يصوب هالكي وحان ربينا الحمر ما عرفتي أو دقو إنسانه والله يصوب عيادو وحوي إلهي بيسوي بحي هالكان نشوفه هاي هو يدي سابيل أصدرته وير الأبتياشيت عليه ما بيل أصدره وحاسة رب الله سمية ماشي بان كشقيناي نينكي عرف با اي غلاي ماشي بان يقول هالهادلay markaasan waxaan iri adigu waa sheekaysanay anu markaas tahriib baan u socday gabdhihii ila aan wada soconay oo tahriibta wada aadi lahayn iyo anigiiba maalin cazumay markaas wuxuu yiri walaalayaal iigu duceeyay in ilaahay ma taqaanayo qalbigeeda ii soo jeediyo tahriibtaasna idinkuna iska daayay ayadana inaan ka reebaan rabaay wadankaas waxun baa ka jira gabdhaha meelahaas waa lagu dhibaateeyaa carabtuna waxa weeyaan gabdhaha waa mataqaana uma fiicne ilaahay waxaad ka meeshiinaan iska joogo hadiiba ilaahay meeshaan idin keenay aduu gabdhihii waa diideen aniguna wiilkii baa i reebtay waa u hara waa guursaday uur baan u yeeshay wiil baan u dhala Faadima Xaaji baan dhakhtaradii ahayd markhaatigu beenlowga waxaa la yiri beenlowgu markhaati qof dhintay buu ka dhigtaa Faadima Xaaji nolol baan ku ogaa Faadima Xaaji iyo gabar Xamdi Maxamed Yaxya la dhaho ribicdihan oo hadda boosaas baalkii degan meesha la yiraahdo Dubai meeshaan ii sheeg garoowe degan aan ku ogaa wiil dhakhtar qabo labadaas ay ahaa dhakhaatiir ii ahaa u tagi jiray Faadima Xaaji qofkii yaqaan dhakhtaradii xamar ugu fiicnaayo private-ka ugu weyn markii la aadi jiray dhakhtar Pakistan dhakhtar Shandeye dhakhtar kirli meel gaar ku lahaa dhakhtar Shandeye meel gaar ku lahaa dhakhtar Maxamed Xaaji Cabdixaal oo jiray Maxamed neerbayaasha ahaan jiray iyo Faadima Xaaji iyo dhakhtar Pakistan oo caruurta ahaa ayagu adigoo dhowr abay kaas balbalaar meel ku lahaan jireen clinic-oo dadku markay aadaan loo aadi jiray dhakhtarnimada private ahaan loo aadi jiray marka Faadima Xaaji waxay ahayd gabadhii dadka ragaas ku jirtay adigu meeshii baan ugu tagi jirnay dhakhtaradayda taasay ahayd oo tarasaanka Faadima Xaaji aniga ii dirtay anoo xaamil ah oo tarasaan baa la isaaray markaas waxaa la sheegay inaan wiil dhalayo waxaan idinkaga sheekaynayaa dulmiga dadka lagu hayo wiilkii saas ahaa halkaas ninkaas ku bartay halkaas ka tahriibay halkaas aan doon ka raacay halkaas aan ninka ku guursaday wiilkii baan dhalay waa la joogay wiilkii oo 8 bilood jiraan Sacuudiga la aaday waa la tahriibay dhulkaan maray waan ka xaday ninkii dhalay waa la goostay anyway waxaan soo noqday أنا ويلكيga wataan ku soo noqday wadanka waxaan waxaas oo dhan idin ku sheegayaa waxa weeye
wiilkii saas ahaa ee halkaa ku dhashay markaan anigu maraykanka aaday ee halkaan uu joogay ee hooyaday allaha u naxariistay halkaan ku haysatay ee sanad iyo samtin halkaan ay wada joogeen ayadoo falaygeedii 4 bilood ka dhiman tahay baa inta nin soo boodo wuxuu wiilka anaa dhalay. ninku waayo waa idig facle, wiilkuna waayo waa Cali Saleebaan, gabadha dhashay waayo waa reer Bicdiyahan. ninkaan iska furay markaan ka tagayay waayo waa dhulbahante waa Faysal 50,000 ko. anigii markaas nin isaaqa ay qabay, wiilna waa u hayay, uurna waa u lahaa. magaalada Minnesota Minneapolis baan deganaa, gobolka Minnesota magaalada Minneapolis baan deganaa. waa isku dhex yaacay markii la wiilkii nin baa qabsaday. jarraf dadku dalka way dulmaaneen. family yagi baa war isla reebtagay baa u badnaa, iyo family yagi iyo meel walba war baa isla dhex mara. been baa laga sheegay nin baa ninka ilmaha kama dhalin, ida faclaa ka dhalay. caano iyo liin isku dhibci waa la kala leexiyaa. liin iyo caano, barliin iyo caano isku dhibci waa isku murugay. sheekadii baa isku murugtay, walwal iyo walbahaar. anigu waa ogahay wax wiilka iga dhalay, laakiin weel baan ahay yaa ila og. ninka reerkii marka reer bariga aan u sheegay waxaan ku iri wiilkii nin baa yidhi anaa dhalay. say waxay dheheen ma wiilkii maantii lagu guursaday iyo ma hameenkan uurkiisa wiilkaas ayaantan uurkiisa yeelanayo. islaan asli muuse faarax la dhaho cismaan maxamuud horta wiilka ayayo nolol baan ku ogaaya, caafimaad allah siiye. markaasay waxay igu tiri, waxay naga soo wacday Jidda, waxay naga soo wacday Makiya Madiina ayadoo maxaj baa jiray. I think inay xaj ahayd bay waxay tiri waan riyoodayo wiilkaas madiba ayada ku ahaa. ilaahay baa ka qaaday, qalbiga allah u dajiyay, soo duceeyay in maama asli faarax mataqaana asli muuse faarax ilaahay qalbiga u dajiyo, u soo duceeyay. bay waxay tiri wiil baan waan riyoodayo waxa la igu yiri Maxamed Amiin baa wiilkaaga u dhashay. marka intaan noo sheegtay walac baa la soo booday. aniguna intaan galab wiilka ilmaha dhalay iyo baa wuxuu fadhiyay qol ku xiga. marka baan iska galay, iska seexda, saa isugu seexda anigoo hurda baa waxaa la itusa wiil yaro oo cad oo buuran oo daydka guriga hortiisa baldhac leh baa la itusa. uurna iskuma ogeyn. marka isla maalmihiiba uur baan yeesha. exactly wiilkaan arkayaan dhala, wiilkii caddaa oo hilibka lahaa oo baldhac lahaa baan dhala markaan dhalay. maasha allah. so wiilkii yiri ilmaan ka dhalay. markaan anigu hooyaday ay soo dhoofayeen wiilkaan intaas la soo maray. marka ayaydiis horta hore waxaba loogu keenay, bariyaa loogu keena. anigana waa taa riyada la igu tusay. ayaydii waxay u bixisay Maxamed Amiin. anaguna aabihiisa wuxuu yiri awaabahay baan ugu magac darayaayo Cali baan dhahayaa. Cali baa loo bixiyay, awowgiisa loogu magac daray. ko wiilkii saas ahaa ee taariikhda lahaa Soomaaliya. dulmigu waa wax xun. baa waxaa dhacday in reerka iyagiyo 99 soo dhoofayay hooyaday oo 14 beri falayga uga dhiman yahay. in ay reer dhan oo dhagaysan oo buuxa balaayo u buuxa intay soo boodeen inay dhaheen wiilka anagaa dhalnay. magaalada Nairobi hadda maanta aan joogo, anagaa dhalnay wiilka. farxaday cidii haday gacmo haday afka day kan day wiilku waa wiilkii. alla wiilkayga u ekaa oday baaba meel la dhiga la waayay. wiilkayga dhalay, waa casumaynaa, waa karaynaynaa. waa la joogay oo anigii markii la yiri wiilkiiba nin baa qabsaday baa koob la dirsada. walla aan weligay arag baan noqday. marka wiilna waa ii joogaa yar oo murjuq ah oo aad u yar. walla baan meel aan keenay aan la aqoon waayay baan sakaraad la noqdo. qiiq baa iga baxay. hooy waa dhoofiya. hooyaday waxay igu tilmaantay 14 beri baa ay hartay. allah duuyaa igu soo dhoofi. adigu reer Bicdiyahankii baa waxay dhaheen intay la hadleen idig facalihi hordaad wiilkaan dhasheenna wiilkaan anagu reer abti baan u naha. haddii Cali Saleebaan wiilkaan dhalayna wiilkaan anagu reer abti baan u naha.
laakiin haddaad responserkaas inaad khaladaan aad u baahan tihiinna suuqa Nairobi dhibaataa ka dhici doonta. laakiin wiilkaas markuu dhoofo idinku idiin dhoofay haddaad dhasheen, hadduu Cali Saleebaan u dhalayna Cali Saleebaan buu u dhoofay. laakiin maamadaas wiilka wadata yaa ee ayaydiisa buuqiyo problemka ka daayay oo reerka responserka ku baxay 14 bari u hartay amaan siiya. horta saasaa wiilkayga lagu soo dhoofiyey. waa 1999 September 14 Mareykan yimaadeen. ko marka waa xanaaqi waa qayliye. long distance baan inta furtay, AT&T baan intaan furtay long distance baan odaga awowgiisa balaha ka rifi jiray. lacagta kumaan baa laygu soo dalici jiray. qofkii garanaya waa 1999 2000kii. markaasuu maalin walba wuxuu dhahaa soo baray ina adeeray gabadhaada cayda baa ka horreysay. hooday waxay tahay na allaha duuya odagaa maskiinka iska daa. naa maskiin muu ahasama ninkii xumeeyaa maskiina. naa waayahay waad ka fogtahay suga waqtigaaga. aabahay 2006 buu dhintay. hooyadayna 2009 bay dhimatay. 10 sano iyadoo arrintayda ka waaday. 2011kii baa wiilkan Cali Mahdi la dhaho hadda laga dhigay gudoomiyaha xamar, gudoomiyaha degmada something maalinta laga dhigayay. baa inta isoo waxay ugu yiri ninkii yiri wiil baan ka dhalay waa joogaa magaalada. waa 2011kii. walaalaha ragga ma ii keentay ninka ma lambarkiisa ii keentay. haye lambarkiiba ii soo dhiga. reer bicdiyan runta idin sheegayay waxay raadinayeen ceebtayda inaan cunugaas ninkaasi uu dhalo oo ninkii aan ku sheegay uu dhali waayo oo igu ceebaystaan. intaasay rabeen. waa la joogay ninkiiba igu soo xiray. waxaan ku yiri walaalle ma ninkii waxaa tahay wiilkayga dhalay. anigu wiilkaama dhalin. marka ma waalnaa mise marka hore waalnaa mise maantaasun waalnaa. keebun waalnaa teebuu samiir qabay. markaasaa waxaan ku yiri oo wiilka ninkii sheegto idin facalayso adiga ma ahayn. aniga maalinta waa la igu dhaliyey kan waa la yeela. markhaati bay leedahay wax qarsoon ma jirto. waxaan ku yiri okay anigu hadda waxaan ku yiri waxaan kuu gudbinayaa baan ku yiri dawladda DNA baa laga qaadaya. wiilka wuxuu cunay oo dhan iyo wuxuu sameeyay oo dhan dee dawladda ka qaadayso bill baa laga qaadaya. marka child support iga dheh alla laga rifayaa baan ku yiri dawladda baa maya waqayliyay wiilkaan uma dhalinin arrinta waa la igu dhaliyay aabaha iyo igu dhaliyay saara la igu dhaliyay. aabaha anu ma hal baan ahaa ma awr baad ma la sukeen fariisi say aabaha ku ogaan kara inaad meega dhashay. ko waxaan ku yiri haddaba taasoo maad oranhaa anigu kuma haystaan ku yiri haddaba wiilkii waa ku haysta. waa 17 jir 5 sano jiray maalintuu qabsanayay. 12 sano ka soo wareegatay. 5 sano 12 ku dar 17 buu jiraa. 17 buu jiraa baan ku yiri anigu kuma haysta wiilkii waa ku haysta. waa nin ragay ka garbax sharcigan asaga maxkamadaha kugu furanaya. haddii kale si uu asaguna ciilka iyo carada uu qabo uu uga baxo adiguna aad u safaargoodid. company DNA baan raadinayaa. lacagtiisana adaa bixinaysid. koobina anaa la isiinaya. koobina adaa lagu siinaya. wiilkuna wuu qarcaya waa arkaynaa. DNA-gaas laga qaado. aqli iga dheh. naagtaan muujeedaa meesha fadhida gul maasha Allah ilaahay smart buu iga dhiga. xagga anta kamaro xagga kamaro baalaha ka rifay baan ka dhameeyay. company-ga DNA-ga anaa soo tuuray. waa laga qaaday wiilkaygana North Carolina looga qaaday asagana Minneapolis baa looga qaaday. lacagta DNA-gana asagaa bixiyay. warqadii koobigana waa la ii soo diray asagana waa loo diray. mutalba ii hiliyay anaa soo dhaxsaday. maalinta warqadii la ii keenay baan waca congratulations wiilka adiga dhalay. صديق شلون كنت جاي هنا ويلكوده أول لها على سلام أنك لا نرني يكون راعيسا ويلك يا جوادك فعله ويلك يا فعله بعدين كنا جايين هيانا نقول لها إله يودي أنا يكون نسمي يا ربي يا رحمانه إله وضيع أنت حتى علاقتك إله because we know هيلين دول ما نيا وهيليون DNA هاي okay what else أنت عارف DNA أنا هايستو شايفك قشطي
baa waxaan talbaan leeyahay iskala qabto baara waro masay nama milyan hagaas milyan baa la oran jiray na milyan